maalin walba waxaan agteena ku aragnaa geedo aan harsano hooskooda mirahoodana aan cunno laamihiisna aan ka faa'iidaysano geedaha meel walba oo aad aragto waxay leeyihiin faa'iidooyin badan iyo noocyo badan maalinna ma ku fikirtay geedaha aakhir laga helo haddana qur'aanka kariimka lagu sheegay u kaadi bal aan si wada jir ah u ogaanay geedaha laga helo qiyaamaha سدرة المنتهى الله وحكل يا سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى معناها تفسيرك سعدية وحوليها يدو واجد آتوي وقطع الله سمدة تدوات الشيرة وحانا لغو مقعاوات سدرة المنتهى محايا يدو وحلقة يكون معضان وحي لوك كفولة وحلقة حلقة يكسو الدكتان وحي إلهي حكي سكي ماله oo waxyi ah iyo wixii la mid ah ama waa halka uu ku dhamaado khalqiga cilmigiisa maadaama geedu ay tahay mid ku taalo samadaha iyo dhulalka dushooda nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu jibriil ku arkay geedaasi agteeda waana booska arwaaxda sareysa ee nadiifka ah oo aan shaydaan iyo wixii la mid ah u soo dhawaan geeda labaad waa dariica ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay suuratul ghaashiya ليس لهم طعام إلا من ضريع علي بن أبي درك وحو يري أصيب ابن عباس كورينيا ومن جيد كميتا جيدها نارتا سعيد بن جبير وحو يري أصيغنا تاسي وزقوم وانا دقحان أرين تاسي وحاقبا ابن عباس مجاهد إجرام إيو قتاتا قريش وحيكو مقعاب جرتي شبيعة شربقة إيو سيف الدريع إكرام وحو يري واجد قد حله وانا عنتدا دبك نارتا كجرا عنتدا سيديدبا waxaa loo cunaa laba nooc inay ka celiso gaajada ama inuu qofka cayiliyo laakiin raashinka dariica la yiraahdo labadoodaba midna ma laha waa raashinka aad u kulul aadna u qaraar ilaahay aynu ka magangelinaa geeda saddexaad waa zaquum ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay suuratu saafaat أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم تفسيرك آيادا وحي ليدهي نمعدا سيان كسو سفيني أهل الجنة هي أمتدا أي أنان أهل النار كما وحي اسكمت با أمتنا الجنة التالي يوكن نار تلقونه سيدا درتيت يا وحي الله مقعابي زقوم اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو عمل ونستعيذ بك من النار وعذابها وما قرب إليها من قول أو عمل